السلام عليكم مقيارت وايدين سلامي سلام كبعدي وانا يوم مركز اسكو سو لاباني waxaan ilaahay channelkeena subscribe gareeya barnaamijyada waa soo badanaysa u jeedinba insha Allah waxaan rajeynayaa inta in ka badan aan gaari doono maantana waxaan rabnaa inaan ka hadalno WWE SmackDown oo xalay wixii dhacay momentiga dhacay toban qodob ugu wanaagsan ugu khatarsanaa ka dhacay aan rabaa in idin sheego mid u horeysa waxay tahay LWO group kooda ninka weynaa iyo Lashley asla kulmay waliba waxay ku balamaynayaan ciyaar isla dheeli doonaan usbuuc soo socdo taasoo street fight ay gadaal ugu yimaadaan street fight socodin waxay la jiraan maxallahay Lashley xukumo oo meeshaas lagu gaarsiiyay jugweyn laakiin waxa waaye Adam oo ahaa maaragtay general manager ya maaragtay kasoo gaaray oo ka qabtay waxa kaloo xalay isdagaalay maxaa la dhihi jiray dewa Bailey iyo gabar ka tirsanayna LWO ga Bailey meeshaas ku guuleysatay waa iska ciyaar caadi ah main event ah taasoo ay kula goobteen Rhea Sky Champions gabadha ay isla jireen the Queen Charlotte Flair ka soo gaartay ka qabatay teeda kale waxa kaloo xalay meesha imaaday Triple H oo ku dhawaaqay Adam Pearce inuu noqdo WWE Raw manager cusub kale oo sameysteen loo magacaabay SmackDown wiilka yaraa Dominic Mysterio oo meeshaas ka soo aqaliyay asagana waxa waaye in loo sheegay maaragtay inay maaragtay isku dhacay meel la saari doono oo Kevin Owens oo imaada meeshaas hawadiisa ku kiciyay waxa kaloo jiro labadan qof oo la yiraahdo Finn and Danny oo ayagana dib ugu soo laabtay dhaawacyo kadib ay ku soo ku jiray waxa kaloo history meeting noqday Charlotte Flair iyo gabadha cusub championka hadda SmackDown loo soo wado WWE contract u saxiixday oo aad cadow isku dhanka fashionka iyo hadii loo fiiriyo waxa kaloo xalay ciyaar dheelay WWE tag teams Uso iyo Nightmare ay u dhaceen Austin Theory iyo ninkii kala kibirka badnaa meeshaas wacdar ka dhacday oo lagu guuleystay waxa kaloo xalay goobtii imaaday Roman Reigns oo muddo bil xoogaa ka maqnaa ringa ayaa dib u soo laabtay asagoo ay is arkeen John Cena waliba John Cena yiri ina hadda title kula jaalin garay uma imaanin laakiin waxa title kula jaalin garay ninka baaxadda ringaha maalmahan hadalka ku haysto LA9 warka loo daayay asoo maaragtay Roman Reigns challenge-giisa maaragtay inuu ogolaaday in kala wali iibsan cadeen crown joogo soo maleynayo waxa meesha ciyaar ku dhaxmartay asaga iyo maxallahay ku balamaynay bloodline kaas qof kamid ah wuxuu ahaa soo maleynayo oo ninka kale ugu yar bloodline waxa waaye Roman Reigns hogaamiyo Uso kale iyo Jimmy iyo waxa waaye Paul Heyman oo afhayeenka u ah waxa kaloo wacdar ka dhacday xalay inay face to face ay u kulmeen ninkii la hayay American Nightmare iyo head of the table Roman Reigns oo iyagana maaragtay dhawaan aad cadow iskuga oo iyagana dib xalay face to face iskugu arkeen oo waxa waaye Jimmy iyo asagana bloodline kamid ah oo ka baxay toos xamaleen doona asbuucida soo socda inuu cadar weyn ay ka dhici doonto meeshaas ay aad iyo aad u xasaasi badnaan doonto John Cena oo joogo maxallahay Nightmare oo asagana champion ah xaaladda aad iyo aad maaragtay waa meel la taaban karo waayaan dhihi karaa barnaamijkeena aad iyo aad u xiiso badan yahay
barnaamijkaas intaas kaliya ma ahani waxaan rabnaa inaan soo gudbino xoogaa yar oo goosgooska ka mid ah. You're a defending champion, right? No. I'll tell you what you are. Right now, you're a man standing in my way. Oh my God, I'm sorry, man. How rude of me. I didn't even introduce myself. Because, you know, while you've been sitting at home on the couch for the last month and a half, and you wear that gold title around your waist, things have changed just a little bit. So I'll tell you what, Tulsa, tell them whose game this is. And Cena! Cena! It's breaking down in Tulsa! Oh no, Samoan spike to Cena! BFT! LA Knight for the cover! And the big dream again, yes, he's got it! Here's your winner, LA Knight! Oh my God! aad iyo aad u mahadsantihiin. haddii channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar. videodan kalena waxaa kaloo soo wadnaa Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay ama khudbad ka jeediyay 14 Oktoobar waa maalin madow ee Soomaalida oo dhan ay u tahay. barnaamijkaasna insha Allah kan markaan soo gelin kadib aan soo galeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. haatan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.